هدف markaad yeelato tallaabada koowaad baa ugu adag wax kastoo nolosha aad bilaabayso bilowga adag naftu markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu mar kasta wuu adag yahay waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto intaad hadafkaaga ka xaqiijinayso noloshu waa kufid iyo kacid walidalik سؤال waxay noqon kartaa oo hadafka nolosha ka leenay markaa muxuu yahay ma inaynu cunno cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamuus la helaaba life purpose-kaagu muxuu yahay hadafka aad leedahay goolka aad nolosha maxaad u noosha inaad maxay xaqiijiso qofka bini'aadamku inuu hadaf leeyahay meel uu socdo uu rabo inuu gaadho qof u nool inuu wax cunaa ma jiro noolo waa wax cuno soo toosoo kac dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaashaha lagu geeyo that's not a life nolol maaha taasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkeenu nolosha ka leenay waa maxay si markaynu ku guulaysanana inuu dhaano hebel noloshiibuu ku guulaystay marka la waayana inuu dhaano hebel noloshiibuu ku khasaaray ila waa labadaa midun haddaad nolosha hadaf ka leeday meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaynaa waa guulaystay markaad gaadhi weydana waxaa la odhanayaa wuu guul daraystay muu guulaysan success ma gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyahay wuxuu yahay waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay quraanka intaasoo aayadood baa ka soo arooray oo ka warramaya alfaa'izuun intaasoo aayadood baa ka warramaya alkhaasiruun wana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay markaad labadaasi kala garato rabbi subxaanahu wa tacaala markaa nolosha iyo hadafkeeda iyo waxoo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay يعني نولشو هدانو جيرين thermometer اما barometer اما wax lagu qiyaasa hadaanad haysanin yani guriga dhererkiisa waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasano markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dhererkiisu intuu yahay laakiin hadii nin waliba isha ku eego wax sax ah soo bixi mayso marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato وبارامترس هذا مركات كاتيجريسو وحاسو ولا قياس كريه ولا قاري كريه وشنو ربي سبحانه وتعالى وحليه هي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران بغل سيديتني يشن بغل سيديتني يليح لبدا يدود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت wax kasta oo nooli geeru dhadhaminaya muntaha hayati dunya weeyaan baa la leeyahay inta doonta joog way dhamaanaysaa wa inma tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafeynaya laydin dhamaystiraya adduunka waa laga yaabaa wax yar yar wa min amalika inaad dhadhamiso sawaan kanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihi aad shaqaysay wax ka mid ah haday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inaad ka soo dhadhamisay haday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inay soo dhadhamisay laakiin waxa la yidhi taas iyadu way dhamaanaysaa absolutely waa dhamaynaysaa laakiin waxa lagu dhamaystirayaa baa la yidhi camalkoo dhan wixii aad qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa inama tuwafaw wafa baa lagu isticmaalay waxa laydin oofinaya laydin dhamaystiraya ujurakum yawm alqiyamah ba ilaahay maalinta qiyaama alxayaat الاخرى حياة الأخرى آخر مركز إنه قالنا إنه والبشهادة دي سالسينية قال إن شبين تادي
adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan side-ku doona ha ahaado haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz ninka qudha guulaystay waa kan umar miqyaas ulfaws markaa waa kan goormuu qofku guulaystay wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka intaad joogteen waxaad guula ku sheegayseen oo dhami wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay ku xigsiiyey nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka lagu kadsoomo nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala aayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya xoolaha nafta ayaan idinku imtixaamaya gaaladaa la idinku imtixaamayayo ahlu kitaabka iyo waxa la mid ah war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran baa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi wax badan oo idin dhiba adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi ee wain tasbiruu watattaquu sabirkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay idan ayuha alikhwa alxayaatu dunya tantahi bilmowt nolosha adduun wuu dhammaanaysaa geeraanay ku dhammaanaysaa maqza alxayaa markaa waxa weeyaan huwa alibtilaa tanaynu ku nool nahay purposeka danta laga leeyahy waa in lagu itixaamo tabaaraka aladi biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum baa ilaah yidhi ayukum axsanu camala adduunku waa ibtilaa inaa jacalna ma cala alardi ziinata laha linabluwahum ayuhum axsanu camala adduunka waxaa lagu hayo oo dhami waa imtixaan inaa khalaqnaa alinsana min nutfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira wma khalaqna alsamaaa waalarda wma baynahuma baطila dalika danu aladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaar adduunku waa imtixaan waxaanad ku imtixaamantahay waxa aad qabanayso afaxasibtum anama khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda waxaana lagugu itixaamayaa imtixaanka rasmiga ahi waa bilcibaada takliifku waa ka waa ibtilaa lakin waa ibtilaa bilcibaada wama khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ibtilaagaasi adiga wejiga doonayo ha kugu yimaado